برهان سال اسماعيل سخاوي ورتا هذا البدن أمام أبو عجالي waxaan u joogno waxa tahay in maaragtay dastuurkan habkii wax baarlamaanka laga dhigi lahaa maxal aqala mise laba aqal mid walba wuxuu leeyahay sababtiis annaga haddii hadda aan parliamentarian waan aragnay dhibaatada ka jirta waqtiga maaragtay hadda aan taagan politically economically marka sida maaragtay dastuurkan waa laba nooc دستور سماوي أو فيكسد عن اللي بدل كره إيه دستور ما هيومن ميد أو اللي بدل كره واحد اللي قدر يكره واحد اللي قديم يكره مركي اللي تقول دالين محل كده شبر بيه مع بتاني مع ابن واحد تو جبر سواء هل فيرت جبر ما كدقنا مس سكن جبر ما كدقنا أنا واحد إلى قد بون هل جبر إن اللي قديم سبب توا سببين يا وحن كل سببين يا حتى العيرنا بوليتيكالي إيكونوميكال مارت كونفليكت marka waxa la rabaa dastuur wixii ummad qaada karta hadii ummadaas waxaasi ku heshiiso ayaa dastuurkii la qaadan karaa laakiin intii ummad ay oomantahay waxa wanaag oo ku jira in aragti sidii maartay looga saar lahaa hal heshiis loogu dhigi lahaa waa horta arinta waxa la qabaa dadkii horeeyay dadaalka badan ee la geliyay dastuurka qabada وأنا لو باهي هاي دل كستا يدل كستا وميل جوجا واحد واحد قيم سودان أو قرن وضاف حقوقات كود كوكا لهران إلى هذا ضروري لازم كان مع ذلك توقف بحب بحي أنا وقعدت بتاعي وحي لوجاس كا السودان كا أنتوا هذا مثلا سجى أيام أيده يا وحان سنة بعد ذلك يقول تعريه حلقة الرياض من الجسمية حلقة ما أقل كده حديثه أنت إمرجسة وحيتها تستور كهذا سلا ضل شيء قبل الصوماليات باولي ميل تاجنا ونحيا نقول قاربا تاجنا هدي مركز تستور أنت هذا كونفرنس عن سماع سنة نلو سماع سنة السنة وشغل كل عين سو مسهل كنت إنك قاعية أنا نتاس سيدا هي نقطة تاجنا كاوي حمودي سألك تصدقات خدمة مليين مرتو عن جعلان الله هنا مقرأ تسكرين هل أقل وجعلان لها مد أفراد إحنا تهاي هذا قلبا إذا كافي كأقل كروح وقراني وما نريد كل سكود جينكا قفك مجالنا نقروه أما مجالنا هذه على لك تجاي أما سيرع كإيمانيا مركز سبب كإيمان الدولة جنب كإيمانيا ماشي حسب لو جرب مثلي كلام مرة بعد ما كعادي مرة دور كيسي مثلي كلام مسألة بفعل كلام يدنا وقوة كأفراد مركز وحنا نقول أن حوك سرايا وليه هاي حلقة قبل المفرد استغرب مركز نقاط كان ضغطوا مركز ضغط دار ضغط الكلام بالنسبة لك وحنا ملينا هذه عاد بعض مع سنتين ولدينا برضه سويسري وحكنا وقت عصب معها تلفر بدن بعد جلسين ضد بدن بعد صوت شتين اللي بعد نوع خبوره وحكسنا أنا وحنا قبا بالنسبة لك إنه نقضه لبعض وأنا صار بيني وهو من هدي فدرال اللي هي كلمة فدرال بمعنى سمينيسا وحلوك لبحيا دولة جوالديو تردي شو أنت دوسها دولة جوالديو داسي وحي يالنا يان تركس لك سيدا دون كلام وحين إلالنا يان مثل حد جوال كاس لكن وحا أقل كلام إلالنا سيدا لوكال تربدا يعني برلمانكو ودولة جوالديو تربدا برلمان كراس ولا هريسا تغير بالبرلمان كسوهريسا marka anu waxaan qabaa tan laga tirada badan yahay iyo tan tirada badan waxa maslaxadooda ilaalinaya tirada isleeg ee aqalka waxa loo bixiyay wakiilada dowladda goboleedyada ayaa maslaxada gobolka yar ilaalinaysa sida darteed sababta darteed waxaan loo baahan yahay inuu laba aqal noqdo maadaama ay federal based oo kasoo واحد عندي بالي marka ugu horeysa reform baa halkaan loogu qoran waxaana ka hadlaynaa baarlamaan cusub marka reform of the new parliament aan dhahno reform aan helmaano mar haddii waxaan ku idhahdaa waxa jira anaan ku salaynay hadda waxaan ka soo baxay ma waa ka socday aqalka aniga waxaan qabaa hal mida inuu inoo ahaado haddaad ii ogolaato sababtu waxaa weeye
hal ka mid baynaan weli culture siyaasadeed oo aan ku maamulno oo fiican aynaan lahayn hadday laba noqdaan innagoon hal ka mid xataa ku xun yaa culays ugu soo kordhaya dhaqaalihiisa iyo culayskiisana ugu leeyahay sidaa awgeed waxaan ku talinayaa bal tartiib dimuqraadiyadda tan iyo aqalkaan iyo maamulkaan iyo noloshaan aan u gaarnay inaynu marka hore la dhaadhacno halka cusub oo baranno oo hagaajino waa masantii haddii lahaa su-aal oo kale oo loo baahnaan lahaa hadda way caddahay insaa jira awgood waxaa maskaxdeeduna siinaysaa in loo baahan yahay waqtigan xaadirkaas wixii in badan loo aqabo laakiin waxaan oran lahaa dastuurka laftirkiisa in muddo loo sameeyo la yihahdo muddo matalan 3 sano 4 sano ayaa dib ugu sameynaya si markaas looga fikro loo aqal haddii imaanayaan iyo hal qaabsuu noqonayo iyo dimuqraadiyadda dhamaystirkeeda laakiin xilligan hadda telefishinka هل أقل بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وحلا محمود عبد الحسن باكوس أنسليشنو باكوس مثلا waxaan u mahadcelinayaa dadka ka soo shaqeeya qabli qoraalka dastuurka dastuurkan wuxuu ku yimid after a long conflict ee muddo dheer Soomaaliya ku soo jirtay mashaakil badan oo siyaasadeed ku soo jiray waxaan isla gartay markii ugu dambeysay 6 sano kadib in Soomaaliya ay yeelatay dastuurka cusub oo ay Soomaaliya ku hayso si nidaam leh waxaana sababa waxa waaye dhibaatooyinka la soo maray in lagu soo taariikhdan baraysa marka anigu waxaan rabaa qof ahaan in bacdama dastuur la qaadanayo dastuurkan kii lagu dhaqmi lahaa waxaa jiri kara qodobo la bedeli karo iyo qodobo aan la bedeli karin dastuurka ay ku qornaan doonaan marka waxaan qabaa inay noqdaan laba aqal Soomaaliya waana sababeynaya inay noqdaan aqalka shuruucda dalka dejinaya ee Soomaaliya ay ku jiraan sida saaxiibka yihiin dastuurkan uu federal based marka federal based yahay representation ku state-yadu way jirayaan okay charter-ka waxa base waa laba gobol wix ka badan ayaa state noqonaya marka haddii states ay jiraan inay representation yeeshaan oo wakiil og ah baarlamaanka sare wax ka soo baxay ka misalaan states way ka misalaan marka waxaan soo dhaweynayaa in laba aqal laga dhigo bismillah Soomaalidu waxay tiraahdaa ama afafan lahaa ama kees marka hore waxaa ka afafanayaa shirkii consultative meeting waan ku galay Muqdisho magaca sorry waxaa la yiraahdaa Cabdalla Boos Cabdalla Boos ya Boos qolada repertoireska iyo qoladayna managementkooda suggestionska aan soo jeedino ama inputka aan ku darsanno qoraaladiina waxaan idinka codsanayaa inay sideeda u galaan لأنه واجب قال أنا أسأل الصومالي هذا دم بص والله كذي أنت أنت شو قلت وهالكذا هذا كان كذب ونوب نوب أي الصومالي هذا ما تفاي تشرا فرد ما بروح النوبي هذا نوب ميل الكركي لما ده reform of Somali Parliament كان تشرا أيا بيال ولا بتقري وما ده هذا قرن كويس waxaan oran lahaa in form of that aan ka badheerno oo si cad uga badheerno waxa uu nusha u dana ayaa ilmaha u dana anniraana Soomaali maanta in baarlamaanka iyagan annagu jira reformkiisu madmadow badan baa mujtamaca inooga imanaya aan ka gudubno oo aan u gudubno Soomaaliyana u horseedno inay baarlamaan cusub soo doortaan ummadana lagu celiyo dadweynaha iyo shacbiga iyo qabaa'ilkana lagu celiyo halkaa markaan ka duuli waxaa soo jeedinaya in sidaa ay oo reformkii aanu annagu intayadan is-reform garaynayno ya la laabo waa suggestion that's my own opinion personal opinion ya waa personal opinion kabacdi in markaa la doorto 275 xildhibaan oo qaranka Soomaaliyeed loo doorto
لا